mid bay dadku ku yar qaldamaan waxa weeye nimanka la yiraahdo caaqilada istaraatiijiyadka bulshadeena ayaan yar uun hooranaya hal minute istaraatiijiyadka bulshadeenu qaab nabadeed buu dhisay marka ay noqoto nimanka la yiraahdo caaqiladu reeraha ayay u yihiin madax ninka caaqilkii waa xasarada joog isagu waxa weeye ama mag buu raadinayaa nin baa reerka laga dilay ama isagaaba dhin dilay oo ninkii uu ka hadlay ama kiis buu ku leeyahay meel ninku markuu caaqil yahay waxa la waxa bileysku qabto iyo waxay maxkamadu qabtaan iyo garsoorka waxa soo mashquul ku yahay oo oran kara isagu haddaan nahay reer hebel diidna waxa nalaguma laha waxa caaqilada laga yaqaan laakiin marka aad gaadho saldarada oo aad takulmisa cuqaasheena iyo reereen heerka ay soo gaadhay ama saldanad ama garaadnimo ama boqornimo ama magacyo fara badan oo kulay ay leeyihiin madaxda inoo talisa markaad heerka soo gaadho heerkaasi heer qabyaaladeed maaha heer xumaaneedna maaha waxa weeye nabadgelyo iyo danta guud waxa weeye maanta saldanad boqortooyadan uu boqor burhaan hayaa ما هو بقرطوية لا حريدة سيدا عينونه وكفكرين القبائل يفعيسي وحنا عاص وبقرطوية لا حريدة دنجود ينبض وحى إن بريان راديو هرجيسة قول كخيت كعتلده عتلده كده جيستي وعنكا أيا صدق من أو مرتي رجي مرتي السومالي فردها أو إلى هنا حريص الناس هي صدق دبي من كاي مرتين وبرنامج دقن كلايلا راديو هرجيس دينجري وشيخ حرير يعمر استرالية إيو حتى هذا نفق الله أي واحد ومتكوت كشيكي قرن ما يكو هاي وحول بقران تدعار لهاي لمارك معنا بقر قفك يدعي يدعي ويكعجر qofka uu habaarana habaarku uu ku dhici jiray dabadeedna labadii oday kale la fadhiyay nin kamid ah wuxuu weydiiyay oo boqoradu qabaa'il iyo waxbay hor taagnaayeen oo qabaa'ilkuna waa kuwan xasarada maydhan ee inta dagaalada dhex socdaan maxamedkoodu u kacay boqorada waxa midkoodu u kacay waxaana aqoon buu beenta balna ma furi jirin boqor marka uu qowl yiraahdo qowlkaasi dhabbu ahaan jiray cidda uu ku yirina kama warwari jirin ma furaya iyo fulimaayo sidaas ay ilaahayna marka uu la socdaa inay leeyihiin akhlaaqdii fiicnayd ee bini aadamka wax maamulayo looga baahnaayo sidaas uu iyagana midkoodii uga dhigay kii habaarana inuu habaarku ku dhaco kii uu duceeyana inuu ducadu ku dhacdo in badan baan hadlay sidaan filayo 3 daqiiqo leesiyo ma waan dhaafay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qaban qaabeyaasha sida quruxda badan ee bilicda wanaagsan u soo qaban qaabiyay arrinkan aad iyo aadna mar labaad waxaan Copenhagen leeyahay ku soo dhaw boqorka boqor burhaan boqor muuse dhamaantiin waan salaam